بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Xamse Aadan Cade wax ka dhigay jaamacadaha wadanka kulliyadda Nutrition and Food Science kulliyadda Nutrition and Food Science waa laba qaybood ama laba department oo ah qaybta koowaad Nutrition qaybta labaadna waa Food Science labada qaybood oo isku jira ay ka kooban tahay ugu horeyn hadaba Food Science ka qaybta la yiraahdo waxay ka hadlaysaa cuntooyinkii bay ka hadlaysaa qaybta labaadna waxay ka hadlaysaa nutritionkii oo ah cuntooyinkaas sidii jirkeenu uga faa'iideysanayay ka faa'iideysigaas laba midkood buu noqon doonaa oo jirkeenu inuu si fiican uga faa'iideysto oo qofku helo cunto ku filan taa waxa la yiraahdaa markaa waa qofkii inuu helo nafaqadii uu u baahnaa jirkiisu si uu jirkiisu si wanaagsan ugu shaqeeyo qaybta kalena waxay noqon kartaa markaa cuntadii oo aan si fiican qofkii u helin qaybtaasina waxay noqonaysaa markaa cuntadii oo poor nutrition ayaa ka dhalan doonta taasina waxay keeni doontaa difaaca qofku inuu hoos u dhaco inay cudurrada qofku u nuglaado arrimahaas ay markaa keeni kartaa markaan isku soo ururino labada qaybood qaybta hore waxay ka hadlaysaa food science oo ah cilmiga ka hadlaya cuntooyinka noocyadooda kala duwan jirka waxay u qabtaan siday u shaqeeyaan iyo waxay yihiin iyo qaybta labaad oo ah nutrition science oo ah cuntooyinkaas sidoo jirkeenu u process gareeyaa sidoo uga faa'iideystaa sidee markaa jirkeenu ugu shaqeeyaa sidee bay u keenaan koritaan ama growth sidee u keenaan development oo kobcitaan sidee u keenaan survival sidee u sameeyaan markaa replacement of one out cells ama jirkeena qaybihii dhaawac u gaaray sidee u soo bedelaan cuntooyinka aynu cunaynaa markaas ujeedooyinka laga leeyahay ama maxaa loo ujeedooyinka loo bartaa maxay yihiin markaasi ujeedooyinka ama objectives of study nutrition and food science ardayga nutrition and food science bartaa waxa uu helayaa xirfad ah inuu barto qaybtii cuntooyinkii iyo qaybtii nafaqadii oo ah si jirkeenu uga faa'iideysanayay inuu helo qualification ku saabsan markaasi foodkii iyo nutritionkii labadaba inuu helo training kaasi uu suurtagelinaya ardaygu inuu ka shaqeeyo qaybaha kala duwan ee shaqada sida hospitaliska communityga ama markaasi governmentka ama dawladda ama NGOska qaybaha inuu ka shaqeyn karo waxa kale suurtagelinaysa ardaygu inuu helo aqoon ah scientific knowledge inuu helo taasi oo hadhow ku sameyn karo research ama cilmi baaris uu ku sameyn karo oo ka ogaan karo markaasi cudurrada iyo waxyaalaha sababa halka ku badan yihiin cudurradaas iyo ka dhalanaya markaa nutritionkii qofka oo markaa liita ama nutritionkii qofka oo noqday over nutrition oo laba mid bay noqon karaan inuu dhaco markaa over nutrition oo cuntadii uu cunay qofku ay noqoto unbalanced oo ay badato markaasi ama inay under nutrition noqoto cuntada ay ku yaraato arday noocee baa geli kara nutrition and food science waxa geli kara arday kasta oo markaasi ka soo baxay dugsiyada sare takhasuskiisuna uu yahay markaa fielka science-ka maadooyinka aadka loogu baahan yahay si ardaygaasi uu nutrition and food science u wada waxa weeye biology chemistry and agriculture maxaad u baranaysaa hadaba ama maxaa keenaya inaad barato nutrition and food science why you are studying or why you should study nutrition and food science ma jirtaa baahi ah inaad barato ama keenaysa inaad barato cilmigani sababtuna waxa weeye number 1 haddaynu ka soo qaadno arrimihii ugu dambeeyay wadankeena ka dhaca oo ahaa emergencies ama droughts abaar saameeyay 2,900 oo qof ay saameeyeen abaartaasi waxa ka dhashay markaasi malnutrition nafaqadarrada ka dhalatay nafaqadarrada cidda ka shaqeynaysa ee maareynaysa waa nutritionists way departmentska kale ardaygu markuu baranayo cid kale ayaa laga yaabaa inuu ku apply gareeyo laakiin nutrition markaynu ka hadlayno qofka ayaa naftiisa iskaga bilaabaya sidii uu maareyn lahaa opportunitieska ama job opportunitiesku waa caynkee marka laga hadlayo nutrition and food science waxay ku qiyaasaan fielka nutritionku inuu yahay fielka science ka mid ah ee ugu koritaanka badan leh job opportunitieskiisuna ay ugu badan yihiin waxaana ku qiyaasaan 20% inay shaqadiisu kordhayso ilaa qiyaastii 2020 taasi oo ah markaasi mid aad u sareysa qofka barta nutrition and food science muxuu ka shaqeyn karaa wuxuu ka shaqeyn karaa ayuu noqon karaa number 1 clinical dietitian oo ah markaasi inuu ku takhasuso barashada cilmiga nafaqada oo uu dadka markaasi cuntada ay cunayeen uu kala taliyo nooca ay cunayeen uu kala taliyo sidee u cunayeen uu kala taliyo waqtiga ay cunayeen uu kala taliyo cuntooyinkii markaa iyo sida isku balance gareysnaayeen iyo noocyadoodii inuu dadka u kala sheego iyo
inuu sameeyo markaa managementkoodii cudurradaasi la siin lahaa qofka noocii cuntada la siin lahaa inuu u qoro oo cuntooyin gaara uu siiyo qofkii. waxaa kaloo qofku samayn karaa markaa inuu counseling sameeyo, counseling patient, inuu dadka markaa xanuunsanaya ee dhakhaatiirta jooga ama hospitaliska jooga inuu u tago talooyin uu siiyo ku saabsan cuntooyinka ay cunayaan iyo kuway ka fogaanayaan. waxaa kaloo qofku samayn karaa cilmigan bartaa meal planning oo ah inuu cuntooyinka qofka u qorsheeyo dadka. waxaa kaloo uu samayn karaa markaa inuu markaa reports qoro ama documents qoro oo ku saabsan markaasi patientska iyo siday wax u cuneen iyo progress inuu jiro iyo arrimahaas. qaybtaas waa qaybta hospital basicka. qaybaha kale oo ardaygu baran karaa waxa weeye qaybta la yiraahdo emergency nutritionka ayuu ku takhasusi karaa ama livelihood coordinator buu noqon karaa ama assistant buu noqon karaa ama officer buu noqon karaa. waxaa kaloo uu noqon karaa markaasi nutrition field coordinator. macluumaad buu soo ururin karaa cilmi baadhiseed oo uu ka soo ururin karo markaa tuulooyinka, degmooyinka iyo magaalooyinka intaba oo ku saabsan nafaqada iyo cudurrada iyo siday u saameeyeen nafaqadarrada iyo arrimahaas. waxaa kaloo markaa ardaygaasi noqon kara nutrition information system analyst oo ah markaa inuu macluumaad soo ururiyo, macluumaadkaana uu analyze gareeyo oo uu ka soo saaro findings iyo waxyaalo lagu xisaabtami karo. waxaa kaloo ardaygaasi noqon karaa researcher, nutrition researcher, cilmi baadhe ku saabsan xagga nutritionka ayuu noqon karaa. goobaha uu ka shaqayn karaa waa goobahee. qofku wuxuu ka shaqayn karaa horta self employed buu noqon karaa, isagaa shaqo abuuran kara. waxa uu shaqada markaa ka heli karaa non governmental organization NGOska, gaar ahaan kuwa cuntada iyo markaasi nafaqada sida FAO, WFP, UNHCR iyo kuwa kale. waxa uu ardaygu ka shaqayn karaa hospitaliska oo u shaqayn karaa dadka patientska ee xanuunsanaya bukaanka oo uu ka caawin karaa cuntooyinka ay u baahan yihiin si ay hore ugu bogsadaan. wuxuu ka shaqayn karaa ardaygu food industry, warshaduhu ka shaqayn karaa. wuxuu noqon karaa markaa ama uu ka shaqayn karaa research institutions, goobaha markaasi cilmi baadhista. wuxuu ka shaqayn karaa Ministry of Health, wasaaradda caafimaadka, Ministry of Agriculture, wasaaradda beeruhu ka shaqayn karaa, Ministry of Education, wasaaradda waxbarashadu ka shaqayn karaa oo uu ka caawin karaa school feedingka ama iskuulada markaa feeding centers kale iyo sidii markaa loo tayeyn lahaa cuntooyinka ay isticmaalayaan. nooca markaa digriga ee ardaygu uu qaadanayaa waa Bachelor in Science, Nutrition and Food Science. ardaygu wuxuu diyaarin karaa master's degrees kala duwan oo ah nutrition ama food science ama public health ama qaybaha kale ee markaa applied scienceska ah. kuwa ugu waaweyn uu diyaarin karo waxaa kow ka ah inuu diyaariyo Master of Science Pediatric Nutrition oo ah nafaqadii carruurta iyo sidii loo nafaqeynayo inuu barto. waxa uu diyaarin karaa Masters of Nutrition and Dietetics oo ah inuu barto cuntadii iyo siday u shaqeynaysay ee jirkeeda ugu shaqeynaysay inuu barto. waxaa kaloo uu baran karaa Masters of Food Science oo ah inuu barto cilmigii cuntada ku saabsanaa. waxaa kaloo uu baran karaa Masters in Clinical Nutrition, nutritionka markaa clinicalka ah ee khuseeya hospitaliska inuu markaa barto. waxaa kaloo uu baran karaa Masters in Maternal and Child Nutrition, nafaqada hooyada iyo ilmaha ayuu Masters ku diyaarin karaa ama shahaadada labaad uu ku diyaarin karaa. waxa uu ku diyaarin karaa Masters in Food Security oo ah inuu barto cunto sugidda. qofku goormuu cunto ku filan helayaa, siduu u helayaa, goormaa la odhanayaa meeshaasi waa food secure oo cunto ku filan bay haysataa. wuxuu baran karaa Food Technology, Masters in Food Technology oo ah warshadaha iyo cuntooyinka siday ugu shaqeeyaan markaa. waxa uu diyaarin karaa Public Health, qaybahaas oo dhan ayuu diyaarin karaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.